knn. koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan. haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane. wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane. intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan. si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta rediyo kulmiye fadlan sabskrayb saar janalkan knn. masiibadu adduunyadayada macallina indhaara way adduunyadu masiibadayada macallina war ma haysaana suuqa xoolahan ka yimi hal halkaan xaabeena war sidaa maahane cudurka isaga dhakhtarka u macallina war saas mee askariga jiiflanka jiifiyaan macallin ew war adigu xoolo la iibinayaad ahayd maxaa suuqa xoolaha kaa keenay war waa beentii suuqa xoolaha iyo xabar hal maalin looma socon karo war annaga xalayna ku barinay saakana ka soo toosnay warka naga dhagaysta habeenkii marka la seexdo cid walba albaabka waxa u soo garaacdo qoladii waxa bushi jirtay laydhka bannaanka ka daaran bay dhahaan damiya waa la damiyaa waxay soo arbushi karaan bay soo arbushaan kadibna qoladii la soo arbushay baa timaada isla cidii bay albaabka u garaacaan waxay yidhahdaan maxaad nalka u dambiseen amar bay halkaa ku bixiyaanoo berri degmada yimaado waad ganaaxantiin baa la yidhaahdaa nalkana hadda daara in muddaa markay ku jireen daara iyo damiya ayay masiibadu adduunyada iyadoo macallinee ay caqli keeneen daaraa damiyihii dhammaaba bannaankay ku dhejiyeen markaabay waxay yidhahdeen war markaad adigu rabtana daaro adna markaad rabtay iska dami masiibadu adduunyada yadaa macallina way adduunyadu masiibada yadaa macallina warana may basiin war siday daara damiya of iyo on leeye onta ay ka hormare oftana ay ka dambooye war nalalku mari doobeen maxaa lagu haystaa iftiin nin diiday hadaad aragto waa daalin warniyo markaad filin cabsiya jilayso mugdiyo ku fiican yahay ee iftiin kuma fiicno afkiin allah ku naqo cabsi maxad noo sheegoosin oo kaalay tuugadu xataa daalimiinta may ku jirtaa u yarkaada adigu horta bini'aadmiga la hadlaya aamu war waxba ma ogidina waxaa maanta banaanbax cabashaa dhigay oo halkii waddo dawladda mari jirto ay laboorka gelaysay xirtay ciidanka badda Soomaaliya maba qabna ciidan badeede war ciidan badeed hoobiyo in badal ka ogaayay ha berigi inoo yirdan ay fasahay war ciidan badeed haddaan leeno jid xiri kara see Kenya badeena u damacad war ciidanka badda haday gadoodeen maxay wadada badda dhexdeeda ah degada soo gasha u xiran waayeen war ciidankaana doona iyo maraakiib midna ma haysan badana ma geli karaan warnimayo warkaan naga dhex geline ciidanku waxay ka cabanayaan mushaar la'aan waxayna dhaheen 9 bilood mushaar ma aynan qaadan war may kalluumaystaan malay banaan ma imaad maqaalina kaanta la yiri marba haday ciidankii baddu xilligan mushaar la'aan ka cabanayaan marqaati waxay u tahay dawladdu inaysan rabin inay badda Kenya ka difaacdo war dagaal waa laga tagay warqada la soo diraa war cabashadooda maxay Twitterka ugu soo qori waayeen war ninba ciidankiisu intuu la awood yahay ayay waraqadiisuna la awoodagta war yaay war ma haysaane dhaqankiinan kalamaanka oo rasmi ah ka soo baxay Jubbaland war ma ficilaa mise waa hadal war warka naga dhageystaan waalinine Jubbaland waa tii laba baarlamaan la sameeyay labada baarlamaan mid kasta waa kii gudoonka doortay laba waraaqna waa tii dawladda iyo beesha lixaad beesha caalamka ka soo baxday beesha lixaad waxay tiri wixii aan ku ballanay sidaan ma ahayn hal la fuliyo dawladduna waxay tiri waxaan waa la doortay la leeyahay iyo xildhibaanadan ma aqoonsanin Jubbalandna waa in hadda sidii galmudug dib u heshiin dhab loo qabtaa war ciyaartii ma la saygareeyay war Jubbaland hadii dawladdu tiro dib u heshiin ha loo sameeyo sida galmudug xaaf ayaa laga diray Axmed Madoobe Jubbaland ma ka diri karaan ya ogeysi ali ya u sheegay dheega jiri tii koonfur galbeed aaw shariif iyo ka taqlusan ino Jubbaland ayaalna in sheegahe warnimada waxaadnan ogeynaa isaga murmaysaane maamul goboleedyada kuwa magacooda laanku ku jiro international way waxbayna leeyihiin kuwa kalena waa local dawladuna localkay ka adag eeba wixii laga bilaabo saacan annuga waxaan la bixinaa Hirshabeelland wajiga wixii hadda ka bilaawdo galmudug laan baa la bixinaa wargeedkii jinkaboodi boodo koofadeen la eray koonfur galbeed leen iyo leereeyana war gobolka Banaadir 0.5 ku kamid yahay laana lagu ma dareen naga aamusaniyo waa inab daran tahay Banaadir isteeda markii hore loo bixin rabay hadeeraan Banaadir laan u bixinayna hora waxa loo yiri ilma adeer aan isku ureeyni ma iideysa karaan war mucaaradaatiin dadka dawladda inay ka dambeeyaan jecel dawladda ku dirina war yaa laanku haduusan ka dambeeynin state-kuna ka dambeyn maayo Somaliland-teeda اعتراف oo ka dambeeya war hadda wixii ka bilaawdo laankii ka shidan tahay والله الملا وكعسين مقال لما لو لك دوايه لله لا تنقوتا لما لو لك دوايه لله لا تنقوتا
war markaan yaraa waxaan erjay sidaas ma ahayn ee lama iska lita litaabuur ayay ahayd war saas ma ahayn waxay ahayd kuukun ala labilaanshow xabagay magacaa bilajana oo baro beerta dhowri ma tan maahana teeda kale ay ku taal tallaabo ay taraqdhe war taas mahayne oo dhagansada guuguun gabas anjaray biita baraag abootoy kunta malaaseeya walaa haataa nakataa niini yelere war haade ma maxaariya mise waa oromo afkaa ku hadashay war waa bila koodar ka jabo ka juqsi ebadkeema maqlin awartay dhashi war sidaa maaha waryaada waa kuunkuun lamina tabaraka sadawni barakaas yeedu lamuna kisiya weela bahaya warnayo ilaa raabka maraykanku sheegto soomaalidu ka bilaqaysta waryaa ilaa tuubaaga nakuna koobiyey warkii maalmahan la wareejinayey ma rumoobe mise waa beenoobe yaa inaad eerka inuu fargada ma beena calidheere wax badan dad muslimiin oo la xasuuqay alxamdulilaahi waa yidhi libaaxa dhintay doqonimaha weysato saad u jaraynaysaan ka arkaa inaad baqayso idabdarre inaad adigu wata waxaan ka arkaa calidheeraad libaax ku matalaysa warnimayo nin baa iga yaabay facebooka war ku soo qoray wuxuu yidhi haddii afhayeenkii al-shabaab calidheere geeriis ay run tahay wuxuu galabsaday allah ka jaasiiyo haddana wuxuu sii raaciyey haddii ay dhimashada calidheere been tahay oo aad nooshahay calidheerow aniguna waa beentay habaarkaasay ka raali ahaw war hadda ka hor niman wiil shabaaba ayaan la sheekaystay shabaabaan xumaantooda dhan uga sheekeeyey markaan sheekadii u dhammeeyey ayaan kadib waxaan ogaaday wiilkuba inuu shabaab yahay markaasaan gadaal waxaan ka idhi si kasta oo ay tahay wax adinka idin dhaaman lama arko hadda ka hor nin rag la fadhiya ragguu la joogana qaarkood shaki ka qabo ayuu nin kale u yimi markaabuu ku yidhi war heedha nimankii shabaab ahaa waxay sameeyeen ma maqashay markaasuu ninkii intuu horta hareeraha eegay ee uu salaama naqsaday ayuu wuxuu ku jawaabay anigu weligay dadii la jooga ma xaman warniyo hadda ka hor ayaa abwaan cali sugulle allah u naxariistee oo maqaaxi ku lahaa hargeysa ayaa wuxuu kala garan waayey ciidankii dawladda iyo jabhaddii SNM markaasuu kolba koox tuuto wadata ayaa u soo gasha markaasuu yaabay markaasaa wuxuu yidhi idinkala garan mayna adeer guulaysta war qawrinow waxaan aan kala garan laanahay ma idinkaa soo diray warnimayo ani waxay igula yaa ku badnaay nimankii gaalkacay gabadhii yareeda caayisho ku dilay ayaa maxkamad la soo saaray midaa wuxuu yidhi aniga gabadha kuma xadgudbi rabine waa layga dhaadhiciyey nin iga weyn oo gabadha guriga ku soo xirtay ayaa igu qalqaaliyou yidhi wuxuuna yidhi dhallinyaraa taaye hawshan waxbay kala dhibi maysee gala hawsha marka waxaan la yaabanahay maanyaradiisa mariiqa alla kaa qaaday war maxkamadda puntland waxaan kula talin lahaa raggaas sidii caayisha ay u dileen in loo dilo war adeero dilaayow dil baa kuu dambeeya intii waxay dhahaan khaatiluunkii khaatil wargeeridu xaq weeye kiiskaasi hadduu caddaaday waa guul war waxaa la yidhi maanta xadgudub laga dhigiyo tuuga xilalkeeda xaashaalile dowladnimo waa xijaab shacab war wiilkii hadda ka hor ay qaatiliintu dileen ee maxamed maxamuud sheekh cali dabla baylod hay-ad baa loogu magac daray dhallinyarada caawisa yariisowba garoonka cayaaraha loogu magac daray war maantaba xilkii waxaa laga qaaday agaasimidii guud ee wasaaradda amniga war taliyaana lixdiina waa la sheegaya war saraakiishii bac kasii miyay ahaayeen war nimankii bakaare lagu dilaba agaasimaha waxbarashaday dili rabeen war cali marguus dadkii ka dambeeyey dilkiisii waa la soo qabtaa la yidhi war madaxweynaha soomaalilan muuse biixi in wiil hooyadii gaarigacan ugu riixay xidka oo baarin yahay la sheegay war xajka sanadkan waxaad yimid baa la yidhi 8 nin oo London baasakiil uga yimid warnimada waxaa la yidhi sharci wiilkii diidaa mar buu dib u shallaayaaye shirqoolku iyo qayaanooyinkuna shalow ka tuuraane shacduu dheeli jiray maalin bay sheedda rogataayo joor unbuu wuxuu shuuqsan jiray dib u shallaaya war gabaygaas reer galmudug antiri war sharci ku dhashay sharci ma diido sharci ku dhashay